السلام عليكم. كسو دوادا جامعة سهل University Education for Everyone. قيبتي بوساسو Faculty of Information Communication Technology Department of Computer Science أما قيبت Computer Science كورساتي إنه وحكو سابسان تهاي Installation of Windows 10 لاجرك وحيد الله سعوسينا يعني أو إنجينير عبد القادر. هذا نسو دادقنو كورساتي إنه حوي أما لاجرك إنه حوي كسابسان يهاي سيدا با كمبيوتر كاغا ugu shumanaysaa Windows 10 dad badan ayaa baahi u qaba sidii computerkooda u format gareyn lahaayeen oo laga yaabaa maalin kasta in lacag kaga baxdo haddaba sidaba adigu isku tiirsanaysaa ama adigu isku tiirsanaan ka dhaa si aad computerkaaga u manage garaysato Windows kan uga bedelato adigu wax qarasha kugu bixin meelna aan geen. Okay, la soco casharkeena waayahay. Installation of Windows 10 kusoo dhawow topiga muhiimka kaasoo ku saabsan sidii aad computerkaaga ugu shuman lahayd Windows 10. Su-aasha koowaad oo isweydiinayo userku ama isticmaalaha computerku end userku waxa weeye Windows 10 muxuu yahay. Majority dadku badanaa waa garanayaan laakiin qaar kamid ah ayaa wax isweydiinayaan su-aashan. Windows 10 waxa weeye waa operating system kamid ah operating systemyada ee soo saarto shirkadda Microsoft kaasoo ah Windows NT ama Windows New Technology. NT waxa la soo gaabiyay Windows New Technology baa la soo gaabiyay NT, yani waa update feature badan oo kuwii hore kaga duwan yahay ayuu leeyahay. Su-aasha labaad oo meesha iman ka dhaw waxa weeye isweydiinayo userka ama isticmaaluhu waa maxay operating system. Operating system muxuu yahay? Operating system waxa weeye waa system software, waa softwareki loogu talagalay inuu hardwareka ka shaqaysiiyo ama manage gareeyo ama control operationada ka dhacaya iyo shaqooyinka ka dhacaya computerka ama uu hoga processingka computerka maskaxda computerka isagoo u assign gareynaya storage ama mug uu wax ku kaysado kuna weelayo wuxuuna controlaa input and output functions. يعني waxa computerkaaga soo galay waxa ka baxay yani la tacaamulka bay u dhigantaa in computerku iyo userku markay isla tacaamulayaan qofka computerka isticmaalaya iyo computerku iskaramayaan laakiin waxa uu dhaxaya operating system. Operating system ku waxyaabo badan buu kaashada sida dadka IT-ga ba garanaya loo machine language luqadda dhahajida oo bits ku shaqeysa serial 1 taasoo computerku direct u garamayo tusaalahan hada xaraf taawato laakiin se waxa uu tarjumaysa machine language luqadda dhaho ama binary ama 1 iyo 0 kadibna markaas uu fahmaya laakiin operating system wuxuu fududeynaya inuu userkii ama end userkii ay isfahmaan waxa uu dalbadana uu turjumo isagoo la kaashanaya local ama machine language-ka. Okay, haddaba sidaba computerka ugu shubanaysa Windows 10 ama how to install Windows 10 waa garanay sida loogu shubayo. Haddii bilowno waxa ugu horeeya marka ugu horeysan important note xog muhiim ah waa inaad computerkaaga dhamaan xogtaada muhiimka ka qaadataa. maxaa yeelay intaana computerka bilaabin xogtaada ka qaado haddii kale xogtaada waa kaa tirtirmaysaa lianaha format baa ku samaynaysaa. Stepka koowaad wuxuu ku leeyahay ama ku farayaa get Windows 10 setup. waa inaad heshaa Windows 10 kii setupkiisii kadibna waxa weeye ama la soo deg ama asxaabtaada ka soo qaado ama macallinkaaga ka soo qaado. setupkii waa inaad keentaa. setupku kadib wuxuu qaybsamaa 32 bit iyo 64 bit waa arki doontaa markaa installation ka samaynayso. haddii badanaa Windows 10 ku automatically 64 bit buu qaataa. marka adiga with your system compatible kan ku haboon systemkaaga ama computerkaaga kan ku haboon dooro. Step 2 wuxuu ku farayaa create Windows 10 installation media. waxaad diyaarsataa installation media ama flashtii aad ku baangareysan lahayd ku duuban lahayd setupkaaga ama DVD-diisi ama CD-di. Okay, markaas waxa gelinaysa flashtii ama CD-di aad diyaarsatay ayaa ka soo qaad inagu flash inay hadda ku mataqaana ku dubaqina. marka flashtaadi computerkaaga oo daaran baa flashtaadi gashanaysa iyadoo waa hore ugu soo duubtay setupkaagii ama ku soo baangareysay. Stepka saddexaad restart u dir computerkaaga isagoo flashta kugu jidho. marka restart u dir computerku waa soo kacaya. markuu soo kaco intaanu caadi u daarmin ee shaashada shucaaca keeno ayaa wax taabanaysa function-kayga kan mid ka mid ah laga bilaabo inta buluuga aragtaan
ayaa functionkii la isku dhahaa. So marka computeradu bioska badanaa wuxuu kasoo kacaa F10 F12 iyo F2 saddexdaa kor kugu qaran badanaa majority computerada saddexdaasa bioskeeda laga helaa. markaa taabato ayaa wuxuu kusoo kacayaa shaashad baa kusoo kacaysa, wuxuu ku geynayaa boot orderkii. markii aad computerkaaga soo kaco oo aad taabato F2 ama F10 ama F12 habda 2 kaaga soo kaco bioska wuxuu ku geynayaa boot orderkii. marka soo soco waa inaad soo socdaa boot orderkaaga. boot orderkaaga wax kale ma aha, yani waa inaad soo doorataa flashtii wax ku format gareynaysa, halkaasi kugu soo qormaysaa flashtii ama CD-dii habda ka isticmaalaysa waa soo dooranaysaa adigoo ka wadaya isla markaas arrowyada tan up and down left and right arrowyada adoo ka wadaya ayaa dooranaysaa CD-dada ama flashtaada. kadibna waxaad taabanaysaa keyboardkaaga F10 baad taabanaysaa si uu u save gareeyo ugana baxo. waayahay marka intaad samayso wuxuu kusoo saarayaa shaashada tan ay ku qoran tahay press any key to boot from CD ama flash hadda waxay ahaatoba. markaa enter baa dhehaysaa ama xaraf ka mid keyboardka baad iska taabanaysaa, taab dheh enter dheh mid uun iska taabo, horey buu ku gudbinayaa. wuxuu sameynayaa loading file, wuxuu soo kicinayaa windowska faylashoodii buu loading ku sameynayaa. kadibna waxaad arkaysaa loogadii Windows 10 baad arkaysaa, calaamadaas waa loogadii Windows 10. marka intaa aad samayso cabaar ka bacdi wuxuu kusoo kicinayaa shaashada tan oo ah luqadii iyo dalkii automatically iyadoo saas weeye, waxba ka bedel mayso default ahaan weeye. kadib waxaad dhehaysaa next baa dhehaysaa. next markaad dhehdo wuxuu kusoo saarayaa shaashada tan oo ku qoran tahay click install now ama install now baa ku qoran. kadib waxaad taabanaysaa install now ayaa ku dhufanaysaa click siinaysaa. okay wuxuu kusoo saarayaa shaashada tan oo ay ku qoran tahay geli productkaygii ama licensigii Windowska Microsoft iska leedahay. marka licensigaaga ayaa waxaad gelinaysaa halkaasaa gelinaysaa licensigaaga halkaasaa gelinaysaa sida qaabkan mataqaanaa formatkiisu noqonaya hadhowdii. adigu waa gelinaysaa xarfaha keliya laakiin dashta ama mainsta usaga ku daraya automatically. haddii aadan haysan wax license key ah waxaad dooranaysaa I don't have product key, kadibna waxaad dhehaysaa next baa dhehaysaa. okay next dooro. next markaad doorato wuxuu kusoo saarayaa shaashada tan oo ah accept garay ama ma aqbashay inaad aqbasho licensiga ama shuruucda u degsan ruleska Microsoft Windowska. okay waxaad dhehaysaa waa aqbalay. si aad u aqbasho haddaba halkan aad tigta saaraysaa, jeegaas aad tigta saaraysaa. aan ku tuso jeegaas aad tigta saaraysaa. okay kadib waxaad dhehaysaa next hadda dhehdo waxaa kusoo baxaysa shaashada tan oo labada qoraal ku qoran yihiin. marka waxaad dhehaysaa upgrade mar dhihi mayno, custom baa dhehaysaa install. custom markaad dhehdo click baad siinaysaa. custom markaa ku dhufato wuxuu kusoo saarayaa partitionadaadii computerkaaga harddiskigiisii. markuu kusoo saaro waxaa arkaysaa harddiskaaga inuu dhowr qaybood yahay, marbu hal qayb habda intuu kugu qaybsan yahay ayuu kutusayaa. kadib waxaad dhehaysaa kanaa ku dhufanaysaa, kanaa doorane format baa dhehaysaa, kanaa doorane format baa dhehaysaa. kadib waa delete garayn kadhaa, hal partition baa ka wada dhigi kadhaa, kana delete garay kana delete dheh. kadib waxaad dhehaysaa next baa dhehaysaa. next markaad dhehdo horey ayuu wax ka bilaabayaa installation Windowskii wuxuu kutusayaa. kadib progresska kan 1 buu ka bilaabayaa ilaa uu ka gaaro 100% ama 100%. kadib wuxuu sameynayaa installing features waxoogaa yar ku shubayaa, installing update buu sameynayaa, finish up buu dhahayaa. okay waxaad arkaysaa shaashada tan markii uu dhameeyo oo ah horey usii soco, yacni waxaad taabanaysaa ama dooranaysaa use express setting baad dooranaysaa. markaad doorato click baa muuska ku siinay, wuxuu kusoo saarayaa u samey computerkan username iyo password in loo sameeyo ayuu ku farayaa. so marka userkaaga waxaad gelinaysaa halkaas ku qoran tahay C David magacaaga, tusaale ahaan engineer Sahal, engineer Cabdulqaadir, waxaa rabto adoo habda magacaaga wuxuu yahay baa gelinaysaa. halkana passwordkaaga gelinaysaa 1 tusaale ahaan. halkana waa ina 1 gelisaa tusaale ahaan. yacni labadaa password waa inay isku mid yihiin.
okay waxaa kusoo haray kan ay ku qoran tahay same wax yani hintis baa la dhahaa hintiskana hintiskaas yani waxaa lagu qortaa wax aad ku xusuusato passwordkaaga laakiin haddii aa one kii geliso passwordkaagii waxba kuma qarsoon la soco qofku hadduu hal mar khaldo intuu password geliyo ka khaldamo hoos buu ugu soo qoraya 1 2 3 kadibna ama 1 1 1 hadda wuxuu passwordkaagu yahay kadibna qofku waa gelayaa oo qof kasta computerkaaga u yimaada si fudud buu ku furan karaa marka passwordkaaga waxaa kula talinaya inaad adkaysato oo xarfo iyo symbols iyo letters ba ka dhigato marka kadib waxaad dhehaysaa intaa ka bacdi next baa dhehaysaa markaad dhamaysato userkaaga iyo passwordkaaga iyo wuxuu ku dhahayaa computerkaaga hadamin inta uu diyaar ka noqonayo waayahay shaashadii ayuu desktop preparing ayuu wadaa kadib wuxuu kusoo saarayaa sida tan normally sidii caadiga ahayd computerkaagu hadda waa isticmaali kadhaa waa caadi wax kasta waa ku samaysan kadhaa wuxuu kutusayaa shaashadii loogadii Windows 10ka yani recycle binkii oo wixii aad delete gareysaa gala ama faylasha tuudho ama master fileska start menudii sirjidii view taskbarkii ama view taskigii waxaan marka tan taskbar baa la dhahaa banaana kan taajifta mana taskbar baa la dhahaa marka log iyo unlog baa laga dhigi karaa marbay dhinaca dhigi kadhaa marbaa dhinaca ka dhigi kadhaa marbaa ogada dhigan kadhaa qofba meel buu ka helaa hala yaaban haddaa aragto iyadoo meel ka tahay laakiin default ahaan yani buttonkaasi taallaa okay waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala oo wax badan idinka hagay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu